haddaba gabadh liibis marsan oo make up marsan haddaan adduun weynaha horgeyno waxaa la dhihi dee Soomaalidu isuma kalsoona. Gabdhaha Soomaaliyeed kalsooni ma laha la dhihi, sababtoo waxaan kalsooni lahayn baad noo keenteen baa la dhihi. Waan hubaa gabadh Soomaaliyeed oo natural ah oo waxba ismarinin hadday Afrika iska daa adduunka oo dhan ay la tartanto inay lambar 1 qaadi baan ku hubaa. Waxaa jirta dhibaatada ugu weyn ee jirta waxay tahay waxba ma akhrin karaan, waxbana ma qori karaan. Markaasay intay meel shopping tagaan bay kareen aan garanayn macnihiisa iyo waxa uu yahay bay soo qaadanayaan kadibna way marsanayaan. Markay marsadaan kadibna wajigii baa ka halaabay. Markuu wajigii ka halaabo oo ma garanaysaa gabadha iyadoo wajigeedii macnaha guduud iyo nabarra iyo wax uu yeelanayaa. Marka waxay kalifaysaa gabadhii inay macnaha kalsoonideeda dhunto oo wajigooda ay ku kalsoonaan weydo suuqa ay ku dhex martay indha shareer kadibna markay xalfad ama aroos tagayso ama meel ay ka qaybgalayso ay wajigeeda ku kalsoonaan weydo oo make up iyo wax daran ay marsatay iyo liibs iyo qashin iyo qashcabiir. gabdhaha Soomaaliyeed garad iyo haybad wacan Allah ku gargaaraye hoy. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. guud ahaantiin saaxiibayaal waan idin salaamay. haddii aad daawanayso waxaan kaa rabaa inaad subscribe ii saarto. marka waxaa jira barnaamij la qabto sanadkii sidaad macnaha hadda dalka ka soo aragteen ama tabnay la soo wax ka warqabteen laakiin waxyaabo macnaha ay naga warqabin baa ka warqabay. macnaha waxaa jira barnaamij sanadkiiba mar baa la qabtaa waa macnaha gabadha ugu quruxda badan ee gabdhaha Soomaaliyeed. waa gabadha ugu quruxda badan gabdhaha Soomaaliyeed baa luuya. gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan bay ugu quruxda badan tahay. waxaa la soo magacaabay 13 gabdhood. 13 gabdhood ayaa la soo magacaabay kadibna waxaa la rabaa in laga dhex doorto gabadha ugu quruxda badan gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan. waa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan ma aha 13 gabdhood midda ugu quruxda badan maaha, laakiin waxaa lagu leeyahay waa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan meel kasta oo joogaan shanta Soomaali gabadha ugu quruxda badan. gabadha ugu quruxda badan isqurux badan. horta barnaamijkaas weli ma dhicin laakiin waa la qabanqaabinayaa, waa lagu guda jiraa. sanadkii mar baa la qabtaa. waynu arki doonaa bal gabadha qaada quruxda bilada quruxda gabadha qaada. sanadkii horeba gabadh baa qaaday, marka waynu arki doonaa haddana bal gabadha qaada quruxda gabdhaha ama bilada quruxda gabdhaha Soomaaliyeed midda ugu quruxda badan gabadha qaada. bal taamkana waynu isla arki doonaa. haddana qabanqaabeynteedii iyo macnaha barnaamijkeeda ayaa lagu guda jiraa. laakiin markii la dhaho macnaha gabadhana ugu quruxda badan kulli waan ogahay dee laguma qancayay. kulli gabdhaha Soomaaliyeed kuma qancaya, xataa annaga ku qancaynba oo dee macnaha gabdhaha Soomaaliyeed way wada quruxda badan yihiin. mid fool xun kuma jirto, kulligood way wada qurux badan yihiin maasha Allah. laakiin hadda macnaha markaad ilinkan gurigan macnaha hadda aan ku jiro ilinkiisa markaad ka baxdo luuqa adigoon gaarinba waxay ka soo baxaysaa mid aad u qurux badan baa ka soo baxaysaa oo isdhahaysa tan waa tii gabdhaha ugu quruxda badneed isdhahaysa. haddana adiga waxaa lagaa dhaadhicinayaa mid aan adiga kuu qurux badnayn ayaa waxaa lagaa dhaadhicinayaa tara ugu quruxda badan ayaa lagaa dhaadhicinayaa. midda kalena waxaa fiican horta sideedaba gabdhaha markay loo tartamanayo ama lagu leeyahay gabdhaha la soo xulay oo u tartamaya macnaha quruxda gabdhaha Soomaaliyeed ayay u tartamayaan. marka lagu leeyahay horta waxaa fiican gabadhu inayna horta wax make up inayna isticmaalin, lips inayna isticmaalin. gabadhu inay ahaato naturalkeeda macnaha sidii Ilaahay u abuuray inay ahaataa fiican. sababtoo ah gabadhaas quruxda badan macnaha marka gabadhan ay tartamaan midda la soo saaro waxay u sii gudbaysaa group kale ay u sii gudbaysaayo Afrikada kale ay la tartamaysaayo la rabo macnaha inay haddana ay la tartanto gabdhaha macnaha quruxda kale adduunka kale Afrikada kale inay la tartanto ayaa loo baahan yahay. haddaba gabadh liibis marsan
oo make up marsan haddaan adduun weynaha horgeyno waxaa la dhihi dee Soomaalidu isuma kalsoona. Gabdhaha Soomaaliyeed kalsooni ma laha la dhihi, sababtoo waxaan kalsooni lahayn baad noo keenteen baa la dhihi. taana innaga ceeb nagu tahay. laakiin gabdhaha iyaga Soomaaliyeed ee quruxda badanow anigu horta walaalkiin baan ahay, waxaan kula waanin lahaa inaad iska dhaaftaan waxyaabaha liibska indhakuusha muxuu ahaa bahalkaygan make up waxyaaban kala radan la ismarmariyo ma fiicna. sababtoo ah haddii adigoo wejigaaga wax marsan yihiin ama xabadka wax ku xidhay ama dabada baag ku xidhay wax ku xidhay adigu soo buuranaya aad ku xidhato, taa macnaheedu waxay tahay qof isku kalsoon ma tid, laguna dooran mahaystaa laguma dooranayo. qofku waxaa la rabaa inuu najaraalkiisa sidii ilaahay ku abuuray inuu ahaadaa fiican. oy sababtu tahay qof sidiis ilaahay u abuuray waan hubaa gabadh Soomaaliyeed oo najaraal ah oo waxba ismarinin hadday Afrika iska daa adduunka oo dhan ay la tartanto inay number 1 qaadi baan ku hubaa. number 1 inay qaadi baan ogsoona oo gabdhaha Soomaaliyeed wax ka qurux badan inuu jirmooga. laakiin dhibaatada jirta waxay tahay gabdhaheenii caadi way isbedeleen. ma arkaysid qaar waxaad arkaysaa dhibaatooyin qaba oo maxay tahay waxaa jirta dhibaatada ugu weyn ee jirta waxay tahay waxba ma akhrin karaan waxbana ma qori karaan. markaasay intay meel shopping aad tagaan bay kareen ayna garanaynin macnihiisa iyo waxa uu yahay bay soo qaadanayaan kadibna way marsanayaan. markay marsadaan kadibna wejigii baa ka halaabay. markuu wejigii ka halaabo oo ma garanaysaa gabadha iyadoo wejigeedii macnaha guudguuduud iyo nabarra iyo wax uu yeelanayaa. marka waxay kalifaysaa gabadhii inay macnaha kalsoonideeda dhunto oo wejigooda ay ku kalsoonaan weyday suuqa ay ku dhex martay indhashareer muxuu ahaa kadibna markay xalfad ama aroos tagayso ama meel ay ka qaybgalayso ay wejigeeda ku kalsoonaan weydo oo make up iyo wax daran ay marsatay iyo liibs iyo qashin iyo qashcabiir. marka intaa ka badan markaa ku sii dheeraado tan iyo intay ku kulmi doono fiidiyoogan fiidiyo la mid ah waxaan kaga tagaystaa iyo ammaan Allah. Peace and love.